barnaamijka ayaan gudagelinaa hordhaca qodobada aad maqasheen ayagoo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa ilaah duraale ka noqdo barnaamijkeena hordhaca qodobadii aad maqasheen ayaan markan gudagali doonaa warbixinta ugu horeysa ee caawan dul istaagi doona waxa ay tahay dowladda Kenya ayaa goor dambe oo shalay ah waxa ay soo bandhigtay sawir sarkaal hore oo dowladda federaalka ay soo qabatay kaas oo lagu magacaabi jiray Abdiwaxid Khaliif Abdi oo ku magac dheera Ciise Tarabuun kaas oo booliiska Kenya qoraal ku daabaceen bartooda Twitter-ka ay ku sheegeen in uu soo galay gudaha Kenya lala baadi goobay dadkan ay ka dalbadeen in ninka hadii la arko ay soo gudbiyaan macluumaadkiisa haddaba 2017 dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgal ka dhacay suuqa Bakaaraha ninkaas lagu soo qabtay isla wasiirka amniga ayaa xiligaas shir jiray qabtay oo hadlay warqad kor dowladda Soomaaliya ka soo baxday waxa lagu sheegay in Abdiwaxid Khaliif Abdi oo ku magac dheera Tarabuun iyo muwaadin Soomaaliyeed oo dhameystay xukunkiisa haddaba warqadda go'aanka iyo waliba intaanan eegin su'aalo badan ayaa ka dhashay sida uu Kenya ku tagay ninkan dowladda Soomaaliya hore ay ku tilmaamtay madaxii amniyaadka ama sarkaalkii ugu dambeeyay ee laha amarka dilalka ka dhacay caasimadda sida Kenya ku tagay sidaas xukunka ku dhacay waxa imika barnaamijka ugu soo biiro igala qayb galay Cornel Ali Macow oo ah saraakiil kamid ah saraakiishii hore ee nabadgelyada Soomaaliya oo Mareykanka ku sugan Cornel marka hore hadaad maqlayso habeen wanaagsan ku soo dhawaada cadar sala horta Cornel Abdullahi Ali Macow waa ku dhawahay Hello Cornel waa ku dhawahay barnaamijkeena Cornel warqadii dowladda ka soo baxday intaanan ku siin aan dulmar hal mar dowladda federaalka Soomaaliya ayaa cadeynaysa in Abdiwaxid Khaliif Abdi oo ku magac dheera Ciise Tarabuun inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo dhameystay xukunka maxkamadeed kusimaha wasiirka wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya mudane Aadam Isaaq Cali ayaa sheegay in sanadkii 2017 Abdiwaxid loo xiray eedeymo la xiriira argagixisnimo dacwadda ay qaaday maxkamad ku shaqada leh ee ciidanka qalabka sida markii kiiska baaritaanka ama kiiskiisa ay baartay kadib waxa lagu xukumay 2 sano xabsi Abdiwaxid ayaa markii uu dhameystay xabsigiisa maxkamadda military ay ku xukuntay in la sii daayo sida sharciga uu qabo waxaana sii deyntiisa muddo kadib la socday dhaqdhaqaaqyada iyo waliba xaaladaha ayuu yiri kusimaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya waxay si cad u muujinaysaa Abdiwaxid inuu yahay muwaadin maray xukunka ciqaabeed ee xabsigii 2 sano ah oo ay ku xukuntay maxkamadda militariga Cornel soo dhawow maxaa kaga baxay horta waa ku salaamaya adiga dhageystayaashaada waa arrin maaragtay aad loola yaabo siyaasadda istiraatiijiyada amniga markii laga hadlo waa unugyo isku xiran waa khalaaya isku xiran unugyo isku xiran marka aan ka bilaabno warbixinta uu wasiirka amniga oo maaragtay mudane Ducaale oo ka dhawaajiyay oo ahayd waa mahad Ilaahay inaan maanta gacanta ku dhignay ninkii amniyaadka ugu sareeyay magaalada Muqdisho oo dhibaato badan iyo dil badan ka abaabulay magaalada Muqdisho inuu gacanteena ku jiro dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynaa waa sida waa hadalkii oo ra'iisul wasaaraha halka markii fiiri marka ugu horeyso waxa waaye maalintii la soo qabtay isla maalintiiba wasiirku waxa uu ku eedeeyay Ciise Tarabuun inuu maartay ninkii ugu khatarta badnaa magaalada Muqdisho dadka dhibaateynayo dilalka qorsheysan iyo qaraxyada abaabulay ay gacanta ay ku soo dhigeen taas waxa waa eedeyn koowaad oo daqiiqada kadib oo maartay wasiirka oosan xaq u u lahayn iyadoo aan baaris uusan marin ama maxkamad maartay aan la marsiinin oo baaristiisa aysan dhamaan inuu maartay go'aanka noocaas isla markiiba uu gaaro taas waa mid unugyada isku xiran oo aan ka hadlayo marka waxa waaye nabad sugidii baaritaan ay samaysay baaritaanka marka ay samaysay waxa ay ogaadeen inuu ninkaani uu yahay nin halisa khatar ku ah bulshada isla markaasna u baahan maaragtay in dadka laga horwareejiyo oo xabsi loo gudbiyo waa sida uu leeyahay agaasimihii hore oo nabad sugidda Sambaloshe waxa uu yiri ninka markii aan soo qabanay oo baaristii ay dhamaatay oo aan rabo inaan maxkamadda u gudbiyo ayaa waxa ay nin cali yara la yiraahdo aan filayo maartay dhalinyaradan aadka ugu xiran dilla Soomaaliya inuu ka mid yahay ayaa warqad ila yimid warqadaasi ma uusan sheegin agaasimaha laakiin warqadaas waa agaasimaha fariisay marka waxaan u arkaynaa waxaan ku farayaa markaad tiraahdo waa qof maartay loo taliye ku ah waa qof loo taliyahaaga oo aad taliye u tahay marka amarka
agaasimaha la siiyey meel fog ayuu ka soo baxay qof asaga ka sarreeya xukumo ayaa soo diray sidoo hadalka u dhigay agaasimaha marka sheekada marka waxa waaye agaasimaha amarkii taliyaha ciddi ka sarreysa meesha warqadda soo qorta ayuu fuliyey ninkii uu sii daayay marka waxaa isdiidan warka agaasimaha intelligence-ka ama nabad sugidda mudane sambalose oo maaragtay oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay midka wasiirka uu soo dhigay oo maanta soo daabacay oo leh waxaan maaragtay ninka 2 sano ayaa lagu xukumay waana la sii daayay waa muwaadin caadi waana la socday ayuu leeyahay marka wasiirku xigeenka ayaa wuxuu la socdaa dambiilo la socda haddana waa arrin kale to maaragtay oo aan dhihi kara maaragtay war oo maaragtay oo wasiirku xigeenka warfaafinta waana la socday ayuu asaga soo la socona aawe muxuu ahay الجهاز الأمني أو جدي معاه أو intelligence أو counter intelligence من كان للسعود كي سمرك حبس قال لك السودان مكور قبل marka unugyadaas oo dhan ayaa kala furfuran waana istiraatiijiyadii oo muxuu ahay siyaasadul amni ama siyaasadda amniga muxuu ahay ay ka waxa ka qaldan ee Soomaaliya ay tahay okay marka unugyada kale oo kala furan waxa waay ninkan waa la xiray faraa laga qaaday sidaan filayo waa hadii ay jirto in faraa laga qaaday fariisa muxuu ahay kaydka CID-da loo gudbiyay wuu baxay Saciid muxuu ahay wuxuu aaday muxuu ahay CID waxa uu soo qaatay warqadda inuu weligiis dambi uusan galin marka immigration-ka loo leeyimid sidaas ayuu maaragtay sida aan xogaha aan ku hayno ay leeyihiin aan maqlayno aan ka maqlayno meelaha soo duulayo inuu sida passport uu qaato Kenya uu ku aaday marka waxaasoo dhan oo unugyaha aan iska warqabin ayaa maaragtay meesha ka jirta midda ugu daran waxa waaye wasiirkii yiri muxuu ahaa ninka ugu khatarsanaa ayaan soo qabanay oo halaaga ku haya ummadda magaalada Muqdisho degan population-ka in maxkamadda ciidamada haddana 2 sano ay ku xukunto 2 sano bes marka wax badan ayaa qaldan oo maaragtay loo baahan yahay maaragtay in oo analysis badan iyo goorfeen badan laga sameeyo oo dawladda dib ay ugu noqoto hay'adaha amniga iyo maxkamadaha si wada jir ah ee dadka Soomaaliyeed ay maaragtay u soo gudbiyaan wax ay ku qanci karaan sababta oo ninkaasi oo maaragtay xabsiga uga baxay marka maxaa muuqanaya wasiirka amniga waxa uu sheegay in ninkan la soo qabto ahaa ninkii ugu khatarta badnaa ama ninkii amarkii ugu dambeeyay lahaa dilalka ka dhaca caasimada madaxii amniyaadka ee shabaab ee gobolka Banaadir marka nin noocaas ah in si sahlan haddana xorriyadiisa uu ku helo oo wadankan uu ka baxo marka maxay muujinayaan tani ay keeni kartaa feri lama dhihi kara hataa habacsanaan habacsananta waxa waa la ruuro wixii hadii ay habacsan waa la toosin karaa laakiin totally waxa waaye aljihaazul amni waxa waaye in kull way qaldan yihiin waa waxaan iska warqin waa sida marka hore aan kugu sheegay unugii aan iska warqabin waay oo maaragtay hadii ninka halista xabsiga loo gudbiyo waxa uu ka sameeyay xabsiga gudihiisa dhaqdhaqaaqa uu sameeyo cidda u timaado dabagalkii oo joogtada ah oo lagu sameeyay maba jiraba nabad sugidda way gudbisay xabsiga ay gudbisay way ka hartay faylkiisa way laabtay in argagixisaha dadka saas dhibaatada maaragtay dhibaato ugu hay marka la sii deynayo nabad sugidda ma ka warqabtay ma ogeey deesmadiisa ma laga wada tashtay muxuu ahaa sababta loo deynayo ma la ogaaday marka waxa waa si ula kacayaan ninkan loo sii daayay midda kale ogaada shabaab waxa waaye waad ogtihiin inay maaragtay ilaa 30 milyan oo dollar canshuur ay ka qaadato Soomaaliya oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho ee 80% oo lacag ay ka qaadato marka waa dawlad oo dhisan waa dawlad dhisan oo maxkamadaha loo aado marka waxa waaye hay'adaha amniga iska warqab la'aan qabyaalada xoogeysatay oo ninkii dilaa oo khiraala ay maartay na soo mari jirtay in xildhibaan uu yimaado oo yiraahdo ninka ana aqaan ee dadayada shaqaas waayo markii loo geeyay wuxuu leeyahay murtadiyo adiga waa ku dili lahaay maartay marka waxa waaye shabaabka marka kaliyo laga badbaadi karo waxa markay isqarxiyaan marka dibkooda waa naga haray oo Soomaali wuu ka haray markay isdilaan ya laakiin asagoo nool hadii la qabto xabsiga la geeyo habacsanantan iyo corruption iyo laaluush iyo qabyaalad iyo lacag badan oo shabaabka ay ku bixiyeen ninka aadka muhiimka ugu ah Saciid
muxuu ahaa Sicid Tribune oo kale aad ayuu muhiim ugu ahaa inay sii daayaan lacag badan ayay ku bixiyeen marka meesha corruption weyn ayaa ka dhacay oo aan maaragtay aan la malaysan karin oo dulmi lagu sameeyay dadka Muqdisho oo sida aragtay loo xaso korreel waxaan rabnaa hadalka dabcan dawladdu warqadan waxay timid markii barta Twitterka dawladda Kenya booliiskooda ay ku shaaciyeen in Ciise 24 bishan uu soo galay Kenya lala baadigoobayo marka intelligence-ga ama sirdoonka Kenya xogaa ma muddo in qodooda aad u dhiifoon yihiin oo markay warbixintan keeneen dawladdan ay qasab ku noqotay in ay xogaa warqad ay soo saarto halkaana ay wuxuuna ay jiraan فيري وحوى دولة كينيا دولة نمديدي iyo qaab dhismeedka ciidankeeda amaanka waxa waa uu dhisan yahay wana iska warqaba waa sida aan ku sheegay kuwan iska warqabaan kow agaasimaha aqoon uma leh kan ku xigay aqoon uma leh kan kale waxa suurtooday inuu maarkii la shaqaato u yahay maxkamadda ciidamada nin dilaa oo heerkaas si 2 sano loogu xukumaa 2 sano maxay tahay ninka amniyaadka dhan xamar haysta ma 2 sano lagu xukumaa warkaas dadka Muqdisho dadka Soomaaliyeed in la qanciyo ay u baahan yihiin hadalkaasna waa inuu soo dhax galaa madaxweynaha waa inuu ka jawaab u siiyo waa nimankii oo muxuu ahay halaaga aragtay muxuu ahay soo barka geysto oo 700 oo qofood la dileen waa nimanka aad aragtay sida aad dadku waxa suuqay waa kuwa haddeertan ilaa miinada dhigay marka maxay tahay 2 sano lagu xukumay matuug miya oo guri oo jabsaday ma waa argagixiso argagaxiso ma 2 sano lagu xukumaa cadeymaha oo wasiirka uu sheego dadka uu sheegay dadweynaha Soomaaliyeed loo qancanayo in maaragtay in dilaa ay soo qabteen haddana 2 sano lagu xukumay marka warqadda dawladda ka soo baxday iyo dambiyada ninka loo haysto waxaad leedahay marka waa kuwa aan isku dhigmin isuma dhigmaan mid ay ku qanci karaan shacabka Soomaaliyeed maahan shacabka Kenya kuma qaldan kuma qanci karaan in nin oo dilaa oo dawladda ay qaratay inuu dilaa ahaa haddana passport la siiyo oo wadanka uu ka dhoofo oo waliba businessman loogu dhufto argagixisada businessman noqday marka meesha corruption xoog leh oo waxa ka dhacay oo nijaasaha ka dhacay way al-shabaab marka korreel waxa rabaa al-shabaab marka haddii sidan wax walba ay fudayd noqdaan soo suurtagal ma in awoodoodii shabaab iyo waliba waxyaabaha kale geystaan inay noqoto kuba kordha oo qatarteedana leh waxa waa dagaal shabaab ma lagu jirabo dadkan waxay ku mashquulsan yihiin oo dawladdan oo Villa Soomaaliya joogo inay isugu faanaan suudadka qaaliga ah oo 3,000 iyo 4,000 lagu soo gado iyo saacadaha 100,000 lagu gato in maartay ay dad oo dhintay oo balanbalay oo gaajoon oo dadka iyaga maartay inay abaar iyo gaajo ay qabsatay ay xoolahoodii iyaga u qaxayaan Ethiopia ay u qaxayaan maba ahan bad dagaal ku jira maba ahan waa dad xaragoonayo oo maaragtay diyaarada ijaaranaya marka shabaabku way xoogaysanayaan waxay cid dagaal kula jirta mala askariga uu gaajeysan yahay marka uu gaajoodana qorigiisa ayuu maaragtay rasaasta uu maaragtay uu iibsana rasaasta waxa iibsanaya iibsada rasaas shacabka iibsada shabaabay iibsadaan in daalum oo maaragtay inuu dadka ku dhibaateeyo korneel aad oo mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga iyo waliba sida barnaamijka caawana kala qayb qaatay korneel cali macu oo Mareykanka ku sugan iyo kaasi ahaa